gabadhaani waxay ka saaraysaa guriga sodohdeeda waxaana ku leedahay waa in aad ka tagtaa gurigeeda. sodohda ayaa dhigayso haddii halkan aan ka taga xagee baan aadi ah. waxay ku leedahay gabadhaani waxaa iiga gala meeshaad adiga rabta aad. waxay leedahay gurigeyga waa inaad dhaaftaa, dhowr mar ayaan kuu sheegay, ka tag horteeda. islaantii ayaa usoo jeesanaysa wiilkeeda, markoo damco inuu la hadlo wiilkeeda, xaaskiisa ayaa kusoo jeesanayso. waxayna ku leedahay qoftaa miyaa rabta in aad noogu soo celiso guriga. waxayna kusoo jeesanaysaa islaantii. waxay leedahay anigu waan kula hadli, hadalkeyga ma maqasho miya mas waxaa rabtaa inaan kula galo faraha. waxay ku leedahay waa in aad ka dhaqaaqtaa horteeda, yaan mar dambe kugu arkin gurigan iyo agaarihaysa. haddaba hadalkeyga waad maqashay waan kuu sheega ayay ku leedahay. islaantii oo yaaban ayaa meesha kasoo tegaysa, borsada soo qaadayso. gabadhaani waxay ku leedahay ninkeeda inakan gudaha ayaan galaynaa. gudaha ayay galeen, albaabka ayay soo xirinaan. islaantiina meesha ayay kasoo tegaysaa. ayadoo gababtooda shaqada joogto ayaa waxay arkaysaa sodohdooda oo kambaniga gudaha usoo galayso. markaas ayay salaamaysaa, laakiin islaanta salaan kama qaadiso. gabadha ayaa dhiisa qoftaan soomaan sodohdeeda, laakiin siday ku noqota hantiile sidana ku hesha hantidan ayay ku leedahay. haddal sidaan u malaynayo waxaan malaynayaa in ay leedahay kambanigan aan hadda aniga aan ka ahay waardiyaha. way yaabaysaa. markaas islamarka ay soo cararaysaa wuxuu imaanaysaa wiilkeeda. waxay u sheegaysaa in maanta ay soo aragtay hooyadaysa. hooyadii miyaad soo aragtay maanta? xageed ku soo aragtay hooyadeeda ayuu ku leeyahay. warne waxaan soo arkay, waxaan la yaabo, waxaan soo arkay hooyada waxayna joogtaa kambaniga aniga aan ka shaqeeya, waana qofta iska leh kambaniga aniga aan ka shaqeey. waxau ku dhahayaa maxaad u salaami weyda adiga. waxayna u sheegaysaa in ay salaantay laakiin ay ka qaadan salaanta. wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa in adiga ay ku aqoonsan, laakiin aniga waxaan ahay wiilkeeda, way aqoonsanaysaa. sidaas haddii tahay haddar waa inaan baxna aan aadnaa xafiiska. meesha ayay kasoo tegaan, waxaan imaanin xafiiska. xafiiska markay gudaha usoo galaan wuxuu leeyahay hooyo sidee tahay. gabadha gacanyaraha ayaa kusoo jeesanaysa. waxayna ku leedahay gabadha ayay ku qaylinaysa. waxay leedahay sidee baad kusoo gelisay ninkan, hadaayad aan kuu sheegay islaantan kuma taqaan, haddeerna waxaad soo gelisay ninkan. wuxuu leeyahay islaantan waa aniga hooyadeeda. gabadha gacanyaraha ayaa dhihayso islaantan hooyada ma noqon karto, hooyadana ma ahan. wuxuu u jeesanayaa hooyadiis xaggeeda. wuxuuna ku leeyahay hooyo aniga wiilkaada weli ma aqoonsanima, maxaa kugu dhacay uu ku leeyahay. hooyadiis ayaa kusoo jeesanaysa. waxay leedahay adiga ma hilmaantay markaad iga soo saaraysa adiga xaaskaada gurigeena. xaaskaada waxay igula dhaqantay si fool xun, adigana waad u jeeday. wuxuu ku leeyahay hooyo xaaskeeda way kaa qaldan, ma ihin inay guriga kaa soo saarto, haddana way kasoo noqoto qaladkeeda. runtii si qaldan ayaan kula dhaqannay, ma ihin inaan sidaas kula dhaqanno, qalad ayaan kaa galnay. wuxuu ku leeyahay waxaa rabnaa in aad naga raali noqto, niska kii caf ayuu ku leeyahay. dhagaha ayuu qabsanaya. islaanta ayaa soo boodaysa. waxay ku leedahay jaliinka beentaad inta ku haysan aniga maraba, labadiina suxun aad ila dhaqanteen, gurigiina aad iga soo ceeliseen, ma ka fikirta hooyada waxay ku dhici lahay. waxay leedahay aniga wiilkeyga matii, intan adiga ku dhali laha waxaa fiicnad aniga oo ilmo la-aan joogo. waxayna leedahay horteeda ka dhaqaaq, aniga kuma dhalinin. labadooda waxay ka soo baxayaan fayska.